banaanbaxa uu qabsoomi doonaa 26 ayuu qabsoomi doonaa bishaan wuxuu qabsoomi doonaa jimcaha soo socoto wuxuu ka qabsoomi doonaa daljirka dahsoon ayuu ka qabsoomi doonaa ma diyaar garowdeen codku waa yaryahay ma diyaar garowdeen banaanbaxa ma loo diyaar garoobay kalitaliska in laga hortago diyaar ma loo yahay dimuqraadiyadda inaad difaacatiin diyaar buu tihiin kalitaliska ha dhaco kalitaliska ha dhaco mudaharaadka waa dastuurka qaranka xurriyatul qowl xurriyatul qowl aan ka cilnaa qofkii ilaa qof la dagaalamayo wax baryaa male kuma diidi karo ilaaha ku gartay maalinta dhalta xurriyatul qowl ilaahi ku siiyay waxaa inoo madal ah maalintii jimcaha annagu nafteena hureeno dimuqraadiyadda iyo dastuurkana u hiilinayno badbaadada dalkaanna u taagan in aan banaanbaxno cod dheerna aan ku sheegno in aan dictator rabin nana xukumi karin nana qasbi karin aana iska saarayna hadduu ilaahay yidhahdo inaan cod dheer ku sheegno ayaan rabnaa insha allahu tacaala waxaan ugu baaqayaa cod dheer uu sheegayaa maalinta jimcaha dalkan badbaadiya soo baxa bannaanka u soo baxa guryaha ka soo baxa annagu dooni mayno xabad farmaajo waa dembiile farmaajo wuxuu rabaa dembigiisa in lala galo u rabaa ونكو عاصل عند مقرادين البحني وحنبار سياهي لكن ولي حكمك أو كل شيء أو كبر بعد الدكتاتورية دي ولي أمسيتي ودبتاعية ما نقبلينه محمد عبد الله فرماجو أو أهنك دلك هذا مدحتويدي ومدة كده حيث الشرع إلى أن كفديا وحديد دورسو وحديد تستور وحديد ولا هذل وحديد وحكست فرماجو والدنبيل قرن وإذا سنة قرن وحو ويراري وحبت كبرسناي أو قرن الشيك كبرسناي وباسوكو وكرد إيربارك وكوجبي رئيس الوزراء سدح السنة يبرك أسجل الشقيناي أيو باسوكو iyo rasaas tira badan si arxan darro ah murashaxiinta kale u weeraray war ra'iisul wasaaraha asaga uu idin lahaa waa ra'iisul wasaare wanaagsan nin iga wanaagsan aan idin keenay markii uu meesha ka tagay inuu weeraro dilo lala tartamin doorasho laga hadlin laga hor imaanin ayuu farmaajo go'aansaday farmaajo waa kaligii talis codkiina waa yaryaa farmaajo waa kali talis farmaajo waa kali talis kalitaliska ha dhaco kalitaliska ha dhaco kalitaliska ha dhaco سيدنا عمر وحوي متى استعبدتم الناس قرمات الدون صلى هذين ضدك وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هو يوجنكو حيدا لا يبقى حرة وهو يوجنكو حيدا لا يبقى حرة مين ساسين وربدا وحمد تراي وحال ربا فعل ربا ماشي لغا سمي dadka gobolka banaadir waxa la gudboon inay dhowrtaan sharafkooda inay dhowrtaan ixtiraamka ummaddu hayso dhalinta waxbaratay ee gobolka banaadir dhag jalaq u siimayaan hadalkii ka soo yeeray wasiirka iyo xukuumadda waqtigeedu dhamaaday boodboodkooda iyo ciidanka ay soo saaraan banaanbaxa nagama reebi doono waan tageynaa wax kasta oo ka dhasha banaanbaxaasne mas'uuliyadeeda waxa qaadi doona oo lagu maxkamadeed doonaa madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee guriga ummadda ka dhaxaysa iska dhax fadhiya ee maxamed cabdullaahi farmaajo asaga lagu la xisaabtami doona farmaajo ninka kaligiiska ah waqtigiisu dhamaaday dadkii shal soo dhaweeyay markii aan soo dhaweynayna waxaan soo dhaweynaynay Soomaali mid noo tahay in calooshaynu nadiif tahay inaan Soomaali aanan kala jeclayn laakiin hadda waxaan ku nacnay oo aan ognahay inuu yahay nin xun kaligiistalis ah marka codkayga dhageyso miir ku dhageyso dadka kalena dhageysta annaga banaanbaxeena waa nabad birta madaxtooyada la dhaafi ma ana idin sheega daljirkaan tagayna 19 waxaa dhacay wax ceeb ku ah dimuqraadiyadda dalka iyo dadkan ceeb ku ah labadii madaxweyne ee maxamed cabdullaahi farmaajo midna xilka ku wareejiyay midna ra'iisul wasaare isaga ka dhigay isagoo meelaha tagsiila ku ah inuu weeraro ayuu haddana keenay waxa wax la yaab leh ah madaxweynihii asaga xilka ku wareejiyay maxamed cabdullaahi farmaajo maanta inuu xabad la dhacayo dhishiiko la dhacayo ayaa la yaab naqatay inuu maanta beebayaal ula soo baxay inuu baasuukayaal la dhacayo madaxweynayaasha asaga ka horeeyay waxaan ka rabaa oo su'aal hal xiraal ah ummadda Soomaaliyeed inaa isweydiiso ninka waqtigiisa dhamaaday maxaa la jaraynaa ma xilka iska wareejiyo waxaan kala rabaa
inaa idii caddeeya halkan maalinta jimcaha haddoo ilaahay yiraa inaan banaanbaxeeno shalay waa ogtihiin waxaa hadlay wasiirka amniga wuxuu yidhi banaanbax ma jiro mana laysku imaan karo waa xaaraan waxay taas daliil u tahay hadalka hadda aan sheegayuu ahaa dowladda hadda wakhtigoodu dhammaaday maalinna inaysan dastuurka kusoo dhaqmin banaanbaxa waxaa qaba qodobka 20aad ee dastuurka waana xaq shacabku leeyahay wasiir amnina hadda fasax iyo in laga wareysto uma baahno madaxweyne waqtigiisa dhamaadana wuu ka sii liitaa waxba laga weydiin maayo banaanbaxa waxa asiga lagu saari lahay waa dastuurkana qab cid la baryahay ma jirto waa in la isu soo baxaa odayaasha horkacaya annaga aan ka midnahay dhallinyarada horkacayso haweenka horkacayaan waa in laga digtoonaada oo aan la diido waxyaabaha haddii ilaah ku ron yahay hor istaaga dadka dhegjarq ha u siina isu soo baxa guryihiinna ka soo baxa ilaahay ictimaada nafsadiinna ku kalsoonaada waxaa la rabaa shucuur muuqato jimcaha haddii ilaah yidhaha 26 maalintay tahay oo ummadda ay madaxa qabsato in meeshaas laga arko abawerki iyo abi axmed kuma hay karaan ayay dadku uridin caawa seexo fikir waaga dobara go-aan qaado dalkan waqti waa kaa dhammaaday waqtigaa waa dhammaaday walaalo 4 sano waa ku sugna xaad naga rabtaa isha xog kale naguma lihid xaqu kale naguma lihid 4 sano xaqa noogu lahayd waa dhammaysatay maalmaan la jira anoo mid ka mid macallimiinta wax ka dhiga magaalada muqdisho waxaan diyaar u soo noqday inaan ka qayb galo mudaahiraadkaasi lagu muujinayo codka shacabka siday u abaabuleen kii hore kana kii hore inuu ka sii weynaado oo dadka ay isu soo baxaan muujiyaan shucuurtooda muujiyaan wadanimadooda muujiyaan in gobolka banaadir dadka degan yihiin dad nabadgelyo badan laakiin hadday xanaaqan aan la celin karin marnaba cid hor istaagi karta ma jirto ummadda Soomaaliyeed waxay diyaar u tahay ayagoo aan xabad ridin ayagoo aan hub soo qaadanin ayagoo aan dhibaato geysanin ayagoo aan wax qarbudin ayagoo aan wax iska boobin oo aan wax bililqaysanin in ay soo qaataan xaashi ay ku qoran tahay farmaajo madaxweyne ma ahan waqtigiisa waa dhammaaday kelitaliska ha dhaco annaga intaasaan leenahay waxaan u baahannahay 100,000 oo qofood ilaa milyan qofood inay isku soo baxdo daljirka dahsoon kelitaliska loo sheego inuu dhacay waqtigiisana dhammaaday dadkii shalay ku doortaan nahay oo ku dabaaldegay dadkeennoo midoobaan rabnay ee dowlad hanan qaada dictator dagaal ogay oo kala diraa tahay isku soo duma dadkii aan lahayn dooni kala saartay daciifadooda abuurtaan harayn daayina bidkeedi dib inaynu ku dooranana diiday shacabkeenna doorkaagii haray ee ka dego doorashaan gelina dhibaatada 4 sano ee la soo dhaafay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday uu magaaladan soo marsiiyey sida baaxadda leh ee dadka dhibaatada ay u soo gaartay ee kow ka tahay in lagu xadgudbay maalkooda sharafkooda iyo naftooda intaba waa lagu xadgudbay waxaana u sii dheereed in lagu xadgudbay 4 sano ee la soo dhaafay xurriyaddii hadalka iyo xurriyaddii isu socodka ee lahaayeen ee dastuurka xaqa uu u siinayay waxaa duudsiiyey kaligii taliska waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo madaxda dadkeedii dishay cildibnaha ruubi dib inaad u daandaansataa waa dagaal hurine dadkaygu sadolkiisii ma raba dhiig in lagu daadsho dadka iyo dalkuba dooni maa duufaan halakayso ee doorkaaga waa haree ka dego dallin baa tahay madaxweyne cuqdadaysan oo siyaasiga dil madaxweynahan dil reer hebel aas reer hebel rog oo aargoos u socda ayaan madaxtooyadii faraha ka gelin maxaa cabdulaahi farmaajo wuxuu halmaamsan yahay oo maanta u ballan qaada hadday shalay kacaankii badbaadeen oo ay ku badbaadeen gaboodfalkii oon la soo maxkamadaynin rabbulciza berri waa lagu soo maxkamadayna waxaa wato cid ka aqbalaysana male iska fiir waxaa samaynaysa aniga xabaday guridin qoran ma qaato dhagax ma wato boor iyo warqadaan wataa iyo afkii iyo microphone wataa aqbal qaylada bulshada iyo sawaxanka aqbal waxaan ka hadlayno waa dadnimo waa dowladnimo waa qarannimo mushaarka iyo xuquuqdaada dalkaanaad ku leedahay maxamed cabdullaahi farmaajo kuma lihid mushaarka berina waa leedahay waana yeelan doontaa xuquuqdaana waa yeelan doontaa mashariifi xasana qarandumis mashariifi xasana qarandumis mase farmaajo
yaa qaran dumis ah maanta waxay taagan tahay wakhtigu wuu dhammaaday madaxtooyadana kama soo baxaayo dastuurna ma ogoli wadahadalna ma ogoli doorashona ma ogoli dalkana xoog ayaan ku haysanayaa dictatorka asigoo dabaqaayo talooyinka uu ka soo miinguuriyey talisyada casmara iyo addis ababa oo aan ognahay inay muddo dheer dadkaas uu dictator haystay wuxuu rabaa dalkii saddexaad ee geeska afrika ku yaalla oo dictator xukuma inuu ka soo saaro waa sida lagula taliyey madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo maxaa cabdulaahi farmaajo inta aan la hadlayna inagu ma maqlo wuxuu maqlaa taliska abiye wuxuu maqlaa in abiye la dhaho iyo in afawarqi la dhaho dadka soomaaliyeed ma maqlo labada dhagooday ka degeen iyagu weydiiyaa inagayna lama tashado waxaan sheegayaa maxaa cabdulaahi farmaajo waad eedi doontaa dhegaysiga abiye iyo afawarqi mana ka socon doono shacabka soomaaliyeed dhexdooda fikirka abiye iyo afawarqi waxaa kuu fiican dadka soomaaliyeed ee shalay meesha ku geystay ee ku doortay walaalow inaad maqasho haddaad maqli weydo maxkamad sugaa tahay dembiilaad tahay abiye iyo afawarqina talatoodii muqdisho kama socon doonto waa ballanqaadaan kuu samaynayo dastuurka noo qoran ayaa dalka lagu badbaadinayaa waxaa lagu badbaadinayaa dimuquraadiyadaa la badbaadinayaa madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday wuxuu go'aansaday inuu waddadii toosna naga leexiyo ou nagu leexiyo waddo qaldan oon 30 sano ka hor ka nimaaday miyaa raalli ka tihiin wadda 30 sano ka hor aan ka nimid inaan ku laabanno waddankan ma ka shaqayn doonto afkaarta afaweerki kama shaqayn doonto ninkaas dhegna wuxuu ku maqlaa afaweerki dhegta labaadna wuxuu ku maqlaa abiy axmed wuxuu saaxiibo leeyahay amxaaro iyo balaayo iyo etoobiyaan iyo eritriyaan iyo walaxaan la aqoonin ayuu saaxiibo leeyahay annaga waa ognahay ayagaa dhagaha waxay ugu soo sheegayaan xasanna iska leexji shariifna iska leexji kuwa kalena laay meeshana joog waa diidnay kalitalis waa diidnay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday iyo shacabka reer muqdisho waa isku siran yihiin shacabka reer muqdisho waxay caan ku yihiin in aysan aqbalin wax ka baxsan dastuurka maxamed cabdulaahi farmaajo 4 sano uu xukumayay dalkan wuxuu ku xukumay xukun ka baxsan dastuurka inoo qoran yaa la baqanin maqaarkiina ha adkaado qalbigiina bir ha ahaado ogaada kuwa xilalka leedinkuugu dhiiba ogaada taariikhdooda hore iyo malafkooda hore soo akhriya bal fiiriya nin raashin kari jiraya amni loo dhiibay suuragal ma tahay nin raashin kari jira amni wax ma ka qaban karaa nin raashin kari jira amni wax ma ka qaban karaa fiiri nin iska lugeynaya xamar weyne oo aan waxba haysanin oo shaatigiisa jeexjeexan yahay ayaa wasiir amni laga dhigay markaasaa la leeyahay dheh banaanbaxa waa xaaraan dheh ma banaanbaxa xaaraane banaanbax xaaraan miya waxaan u sheegaynaa dadka marka farmaajo kaamirada ay hor joogaan isaga qancinaayo markay annaga noo imaadaanna nagu qancinaayo in ay farmaajo xil inuu u dhiibto ayagoo yacni iska lugeynaya xil in loo dhiibte waxaas waa dhaqan dictator dadka masaakiinta ah lama abiyus gareeyo walaalkeen wasiirka amniga shalay waxaa ku dhacay abiyus gareen fikradu aaminsaneenoo ku hadlay waa beentiis ma aaminsano annagaa niyaddiisa og annagoo noo sheegay soo baxa walaalayaal soo baxa hadalkiisa aan la qaadanin 4 sano meesha joogay wuxuu ku aruuriyey afkaartii kacaanka haraagii kacaanka madaxtooyada waxaa jooga waa haraagii kacaanka oo isaguna madaxweyne u yahay annaga madaxweyne nooma ah 4 sano noo ahaa hadda waqtigiisu waa dhammaaday cidda uu madaxweyne u yahay oo ciyaalka kacaanka ah waxaan u sheegaynaa dhalinyarada muqdisho iyo dadka soomaaliyeed ee 20 milyan ah wixii shalay dhacay ma dhacayaan waa la maxkamadayn doonaa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo kuwa kale dembiilayaalka waxaan idinka codsanaynaa oo idiin soo jeedinaynaa oon idin faraynaa maalinta jimcaha 26 February waa maalintii badbaadada qaranimada Soomaaliyeed waa maalintii badbaadada qaranimada Soomaaliyeed bahal hadduu gurigaaga galo oo ilmahaaga dhex galo waa adag tahay inaad dhagax tuurtaa waa inaad si kale ku bixisaa annaga haddaan nahay reer muqdisho nin aan soomaali u malaynay oo bahalaa madaxtooyada qaranka naga gala madaxtooyada qarankana annaga aloo waxaa ku hareeraysan hooyooyinkeen iyo aabbayaalkeen iyo ilmaheen ayaa ku hareeraysan ma aargoosan karo haddaba markuu bahal kaa galo guriga
ooda gacanqaadna u samaynin ilmihii iyo dhaladii iyo gurigii dhex yaal waa inaad xeelad kale isticmaasho soo bax war isoo dhaaf war iga tag wow waa inaad tidhaahdaa waa inaad cuudisaa maarkiinoo qof bini aadam bahala ka dhaxadla ma la dilo isaga ka baxaayaa la dhahaa waa in laga saaro meeshaan ninkaan haddaba bahalkee meesha naga qabsaday anigu waxaa idiin sheegayaa haddaan nahay aqoonyahanka gobolka banaadir iyo dhammaan musharaxiinta anigoo afkooda inagula hadlaayo hal qof oo musharaxa oo muqdisho xabad la rabaa ma jiro may maqlaysaan muqdisho waa magaaladanadii ma dumayso farmaajo isagaa baxaya iyo inta kacaankay meesha u joogtaa annaga doorasho diidna ma doonayno dictatorna ma doonayno khaswada ma doonayno waxaan ilaahay hortiisa ballan idinkaaga qaadaynaa maanta farmaajo in maxkamad la gey doono sharciga la horgey doono la xiri doono cimrigiisa inta ka dhimana xabsi uu ka qaadan doono maxaa yeelay waa ninka magaaladan xirxiray hooyada jidka ku umulaysay kalifay waa ninka shacabka Soomaaliyeed Itoobiyaanka amxaarada u dhiibi jiray waa ninka ilmaha Eritrea u qaaday waa ninka balaayada wadankan ku dhacday oo dhan soo falkiyay waa farmaajo wax walba oo xun farmaajo ka sii xunay ogaada wuxuu isku lexsaday hubkii qarankan lahaa ee madaxweynayaashii asiga ka horeeyay sida dhibta leh ay ku soo tabceen ayuu isku lexsaday hubkii loo diyaariyay iyo wiilashii loo diyaariyay inay cadowga ka hortagaan ayuu maanta diyaar u yahay inuu dalka afgambi kula qabsado siyaasiyiinta iyo madaxdii hore asiga xilka ku wareejisay ee baalkii ka ra'yiga duwan iyo aqoonyahanka iyo dadka aqliga u saaxiibkana uu ku dilo miduu musaafuriyo miduu dilo iyo miduu xiro inuu ka dhigo ayuu diyaar u yahay ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa ogtay shabeellada hoose yaaq bari weyn oo 100 kilomitir hadda muqdisho u jirta waa la gubay ayaguna waxay ku mashquulsan anaka darbiyada muqdisho inagu cayrsadaan awa shaqadoodii ana boor wata oo boor dastuuri ah wata ayay waxay rabaan darbiyada muqdisho inagu cayrsadaan shaqadii loo diray iyo shacabkii ilaalada ay ka haayeen shabaab waxay ku leynayaan 100 kilomitir meel ka yar awa shaqadoodii taliyaha ciidanka waxaa la sharciga ilaali taliyaha booliska waxaa la sharciga ilaali taliyaha nabasugidda waxaa la sharciga ilaaliya haddaad sharciga ilaalin weydaan waa la idinla xisaabtami adiga iyo ka in soo diray farmaajo ee maskaxdii kacaanku maskaxda ugu jirto